دقدي أفرتني كوباد غيبتي كوباد عيارته كبد قروح بدن وشبي وليش كونفور قلبيت سوماليا وليش بنادر يا سمانيان باسكا غيبت الله بعد عيارته كده مركي غيبتي كوباد دقيقة كونفور قلبيت أي باستن كسورة حسن باري وحاو بلابنا يا مركن ساعة دي غيبت الله بعد يقولنك وحاصلين عتاجن عياريان كونفور قلبيت لاعب كلو مجا عباس كسورك سيرجا يوكده وجه عيارته إذا بنادر يا سمين باسكا غيبت الله بعد عيارته سكستبا gacanta ay kaga dhacday mid kamid ah ciyaartooyda koonfur galbeed sidaas darteed kubadaas garsoorku waxa uu tilmaamayaa in ay tahay kubad handball ah ama gacanta kaga dhacday mid kamid ah ciyaartooyda koonfur galbeed sidaas darteed qaybtan labaad ee ciyaarta si dardar ay ku bilaabatay saaxiibayaal daawadayaal way soo ciyaareen markan ciyaartooyda gobolka banaadir xirada ganaha ay gaartaa saatee kubadaas waa la soo saaray mar kale garabka ay talaa ciyaartooyda gobolka banaadir saatee ciyaaryahanka lagu magacaabo nuuraani waxa uu sugay ilaa ay kubadaas ay ka baxayso difaaca midiga gobolka banaadir si qurux badan ayaa loo soo baasay Ibrahim Ilyas si kastaba ciyaaryahanka lagu magacaabo Ibrahim Ilyas ugu dambeyn kubadaas way ka dheeraatay waxaana ciyaartooyda gobolka banaadir markan ay u saareen banaanka kubad cadaadis badan uu sameeyay laacibka lagu magacaabo Osman lambarka 9aad ee weerarka dhex ugu ciyaaray ciyaartooyda xulka kubadda cagta galmudug dabcan waa xulka kubadda cagta koonfur galbeed waxaa soo wajihi doona ciyaaryahankan galmudug haddii xulkiisa ay sameeyaan soo kabasho ama ciyaar sare uu soo bandhigo kastoo wiilasha banaadir wax kasta ay sameyn karaan daqiiqadaha kasta nuuraani maxamed nuuraani waa uu soo ciyaaray ciyaaryahanka lagu magacaabo nuuraani xirada ganaha ayay soo gaartay asaatee goolhayaha gobolka banaadir hanad cumar isxaaq ayaa kubaddaas si qurux badan u badbaashay ciyaaryahanka lagu magacaabo hanad waxa uu ka mid yahay goolhayaasha kalsoonida badan ka hesta tababaraha ruuc cadaaga ah ee gobolka banaadir daadir amiin cali daada xitaa taageerayaashu waxay ciyaarta ka daawanayaan hadda waa saqafka sare jacaylka u qabaan kubadda cagta iyo in taageere u muujiyaan KJS ama banaadir ciyaarta weyn ee ka imaanaysa garoonkan injineeriis oo degmada cabdicasiis ee gobolka banaadir waa mid ka mid ah kulamada ugu taageeraha badan ebid kuwaas oo taageerayaal ay soo buuxdaafiyaan garoonka injineeriis oo degmada cabdicasiis ee gobolka banaadir iska ilow ciyaartii shalay taasoo dhex martay galmudug iyo sidoo kale buntland galabta garoonkoodu waa uu camiran yahay xitaa saqafyada ayay daawadayaashu ciyaarta ka daawanayaan banaanka ayaa u baxda markan ciyaartooyda koonfur galbeed soomaaliya ayaa sameynayaan kubad foora gacan ah waxaana kubadda u taagan ciyaaryahanka lambarka labaad ee koonfur galbeed nuuraani maxamed nuuraani waa uu soo baasay ciyaaryahanka lagu magacaabo nuuraani si daarigta ayay kubaddaasi banaanku aaday sidaas darteed goosha ayuu ka soo bilaabi doonaa goolayaha lagu magacaabo hanad cumar isxaaq goolayahanad ayaa kubadda soo baasay waxa uu la ciyaaray Cabbaas difaaca daadyar ee gobolka banaadir Cabbaas waa uu soo korosay si qurux badan ayuu soo gaartay difaaca bidix ee koonfur galbeed ciyaaryahanka lagu magacaabo Mahad Haruun si kastaba Mahad waxa uu sameynayaa kubad foora gacan ah kadib markii kubaddaasi banaanka looga saaray si dardar ayay ku bilaabatay qaybtan labaad ee ciyaarta koonfur galbeed Soomaaliya iyo sidoo kale ciyaartooyda gobolka banaadir maadaama qaybtii koobaad ee ciyaarta labada kooxood wax badan ay soo bandhigeen koonfur galbeed hoggaanka looga qabtay garabka ayaa taala markan ciyaartooyda koonfur galbeed si kastaba ugu dambeeyna kubaddaasi banaanka ayaa ugu baxday ciyaaryahanka lambar 22aad ee koonfur galbeed Omar Aadan Cali daqiiqadii 48aad waxaa sii raacday kaliya 8 sakan waxay indhahaygu qabanayaan taageerayaal badan oo qaybta sare ciyaarta saqafka sare hotel gudaha garoonka loogu dhisaraba ciyaartooy qaybtiisa sare ka daawanaysa waana taageerayaal daayar kuwaasoo qoraxda kuleelkeeda ugu dulqaadanaya jacaylkay u qabaan ciyaaraha maadaama galabta ay daawanayaan afardamaadka tartanka maamul goboleedyada iyo gobolka banaadir sanadda 2020 koonfur galbeed oo akhbaar fiican la soo siiyey iyo warar fiican oo ay ku farxanayaan qaybtan labaad ee ciyaarta dib ugu soo biira kulanka si kastaba ciyaaryahanka lagu magacaabo Xuseen ayaa sameeyay taakal halisa lambarka 10aad ayaa ciyaarta bedel ugu soo galay wiilasha koonfur galbeed qaybtan labaad ee ciyaarta waana bedelka kaliya uu sameeyay tababaraha lagu magacaabo Axmed Gidaamo aadan muallim ayaana ciyaaryahanka la yiraahdaa dhaawac ayaa jira markan mid ka mid ah ciyaartooyda gobolka banaadir ayaa dhaawac sheeganaya Soora Xasan Maxamed Xaaji iyo medical teamka garoonka labaduba waxay eegayaan xaaladda ciyaaryahanka dhaawac ka sheeganaya gobolka banaadir waana laacibka lagu magacaabo dabcan waa xidiga lambarka 13aad ee gobolka banaadir xidiga dhaawac sheeganaya kasta wala dabiibaya ciyaaryahankan
bannaanka ayaana lagu siibay dabiibi doonaa hariidka ayaa kubadda u taagan difaaca dhexe gobolka banaadir xamuud maxamed cali hariidka kubadda uu soo ciyaaray waxay u soo gaartay ayuub oo uu soo baasay baadir jalla mar kale garabka ayaa loo soo dhigay saatee ciyaaryahanka lagu magacaabo ayuub kubaddaas waa u xakameyn waayey sidaas darteed kubaddaasi bannaanka ayaa u baxday ciyaartooyda gobolka banaadir ayaanu kubadda ku soconaysaa daawadayaal saaxiibayaal wiilasha koonfur galbeed soomaaliya waxay doonayaan in isbeddel dhaba ay sameeyaan maadaama wada hadal wada shoor iyo sidoo kale wada arrinsi ku aadan qaybtan labaad ee ciyaarta hannaanka ee u ciyaari lahaayeen ay ka soo qaateen tababarooda axmed gidaamow qurumbu mar kale kubaddaas waa uu madaxeeyey ciyaaryahanka lagu magacaabo qurumbu si kastaba waxay ku baxday mid ka mid ah ciyaartooyda koonfur galbeed soomaaliya waana ciyaaryahankooda lambar 12aad laacibka taabashadii ugu dambaysay kubaddaas ayay ku baxday sidaas darteed ciyaartooda koonfur galbeed ayaa kubadda soo ciyaari doona kadib markii kubaddaasi ay ku baxday laacibka lagu magacaabo cumar aadan cali daqiiqadii kontonaad ayay soconaysaa qaybtii labaad ee ciyaarta waxaana sii raacda keliya 40 sakin kulanka weyn ee u dhexeeya koonfur galbeed soomaaliya iyo ciyaartooyda gobolka banaadir koonfur galbeed aadan mucallim si qurux badan ayuu u gooyay aadan kadib markii kubaddaasi uu riday cabdirashiid oo maaliyadda lambarka lixaad u xidhan ciyaartooyda gobolka banaadir waana kubadaha nooca loo yaqaano nuudbeeg ama tuundheere beddel ayaa dhacaya laba beddel oo degdeg ayuu samaynayaa tababaraha rugu cadaaga ee hogaaminaya ciyaartooyda koonfur galbeed macallimu axmed gidaamow waxaana ciyaarta beddel ku soo galaya ciyaaryahanka lambarka 7aad ee koonfur galbeed liibaan cusmaan mudey iyo ciyaaryahanka lambarka 20aad ee koonfur galbeed maxamuud ibraahim iyo sidoo kale liibaan cusmaan mudey waa labada magac ee beddel ugu soo galaysa ciyaartooyda koonfur galbeed soomaaliya maadaama tababarooda hoggaanka laga hayo waxa uu keenay laba beddeloo degdega waxaase garoonka uu ku soo kordhiyey hubkiisa ugu weynaa ciyaartu u adeegsan lahaa waxaana uu doonayaa in natiijada guud dhinaca kale loo sarifo oo birta koonfur galbeed ayaa biraha ka garaacday ciyaartooyda gobolka banaadir mar kale koonfur galbeed bannaanka laga soo darbeeyey waxaase south west ka aada bannaanka alla maxay yeed kubad xoogan alla maxay halis ka badbaadeen ciyaartooyda gobolka banaadir alla maxay kubad dulcule la soo dhigay xerada ganaaxa wax kastay kubadda dardar ku socoto waxay taabatay birta ciyaartooyda gobolka banaadir halis badan ayay galeen xilli ciyaartooyda gobolka banaadir ay halistaasi ka badbaadeen cusmaan mudey iyo ciyaartooyda kale ee beddel ku soo gashay way aamin laayihiin in fursad noocaas oo kale ay khasaariyeen ciyaar noocan oo kale ah si kastaba sayid cali aadan waxaa lambarka 8aad ciyaarta looga saaray maxamuud ibraahim ayaase beddel ku soo galay waa dhinaca koonfur galbeed soomaaliya sidoo kale tababarooda axmed gidaamow waxa uu ciyaarta ku soo kordhiyey liibaan cusmaan mudey waxaase lagu beddelay xuseen mustaf lambarkii 19aad ee koonfur galbeed wiilasha south west shaqo fiican ayay qabanayaan tan iyo markii dib ay ugu soo laabteen ciyaarta cusmaan bashiir dhowr ciyaaraan ayaa ku hareeraysan ciyaaryahanka lagu magacaabo cusmaan si kastaba garsoorku faawul ayuu u dhigay ciyaaryahanka lambarka 17aad ee koonfur galbeed soomaaliya cusmaan bashiir way soo baasteen markan ciyaartooyda south west gobolka banaadir kubaddaas way soo saareen waxaa soo dheereeyey ciyaaryahanka lagu magacaabo cabdirashiid 52 daqiiqo iyo 57 sakin koonfur galbeed eber ciyaartooyda gobolka banaadir goolku quree galabta halkani ka dhashay waa ciyaaryahanka lagu magacaabo nageeya deeq goolkii u dhaliyey daqiiqadii 41aad qaybtii koobaad ee ciyaarta waa weerar gobolka banaadir waa uu soo saaro kubaddaasi laacibka lagu magacaabo barodo jalla ayaa soo bundeeyey ibraahim ilyaas ayaa kubaddaas ka hor qaatay ciyaaryahanka lagu magacaabo mucallim aadan lambarka 10aad ee koonfur galbeed baadir xasan xaashi mose boos fiican ibraahim ilyaas oo yaa salaam alla maxay yeed kubad soo wareega taasoo loo diray shabaqu ilaalinayo golayaa koonfur galbeed garabka ayaa taala marka nageeya deeq si qurux badan ayuu u gooyay nageeye waa mid ka mid ah kuwa ugu xirfadda badan ciyaarta waa mid ka mid ah kuwa mucjizooyinka ee hibada sare soo bandhigaya in ay haystaan gobolka banaadir nageeya deeq waxay ka dhigan tahay in ay haystaan dayman wakhti kasta madadaalo ciyaarta ka samayn kara iyo laacib micno weyn ugu fadhiya gobolka banaadir si kastaba ciyaartooyda gobolka banaadir waxay soo tuuranayaan kubad geeskalaada koonfur galbeed waxay wajahaysaa kubad geeskalaada waa saxaalad kaloo halisa ibraahim ilyaas ayaa kubadda isku diyaarinaya el kabitaano barodo kabtanka koonfur galbeed waxa uu la haldamayaa ciyaaryahanka lambarka 9aad ee gobolka banaadir laacibka lagu magacaabo muse kubadda waxa uu taagan ibraahim ilyaas bannaanku soo dhigay ibraahim ilyaas jalla ayaa xirbeeyo ugu dambeyn koonfur galbeed kubaddaasi bannaanka ayay isaga soo saareen wax kasta oo ciyaartooda ay dhaqaaqaan
si kastaba koonfur galbeed waxaa sidoo kale beddelada ciyaarta ka baxay ka mid ah ciyaaryahanka qaybta dhex burburinta ugu ciyaaraya kooxda saxafiga koonfur galbeed mahad barre sidoo kale waxa uu ka mid yahay wejiyada ciyaarta beddel looga saaray oo kubadda alisa si kastaba garsoorku waxa uu dhigay faawul waa kubad khalad ah oo laga dhigay lambarka 7 ee gobolka banaadir daadir jalla waxaase kubaddaasi qaladka loo dhigay goolahayaha koowaad ee south west laacibka lagu magacaabo ibraahim axmed xuseen ibraahim waxa uu ka mid yahay kuwa ugu dhaqdhaqaaqa badan ciyaartan kuwaasoo dhiiggooda u shubayay galabta magaca koonfur galbeed soomaaliya xilli daadir xasan xaashi jalla uu galabta raacayo waddooyin badan kuwaasoo raaceen walaalihii maadaama khaalid xasan xaashi oo ahaa walaalka daadir xasan xaashi iyo sidoo kale faysal xasan xaashi sidoo kale hore uu ugu soo ciyaaray ciyaartooda gobolka banaadir haddana galabta taariikhda kale la qorayayaa in magaca reer xasan xaashi lagu arkayo afardhamaadka tartanka maamul goboleedkii gobolka banaadir maadaama ciyaaryahanka lagu magacaabo daadir jalla uu ciyaarayo sanadkii 2017 gobolka banaadir maaliyadda lambarka 22aad waxa uu xirnaa walaalka daadir jalla ciyaaryahanka lagu magacaabo khaalid xasan xaashi sanadkanna isaga ayaa ciyaaraya koonfur galbeed soomaaliya liibaan cosmaan mudey si xawaare lah ayuu soo dhaqaaqay ciyaaryahanka lagu magacaabo liibaan dhowr ciyaaran ayaa hortaagan liibaan baxbaas ayaa la sameeyey nan kala soo dhigo cosmaan alla maxayeed badbaadin cajiiba alla maxayeed badbaadin dhaaftay waxayeed kubadxeen daab loo soo dhisay qaab xarakaysan loo soo abaabulay si xigmadaysan loo madaxeeyey ugu dambeenna qaab xasilan uu isaga saaray goolayaha koowaad ee gobolka banaadir hanad mar kale waa la soo karayso kubaddaasi qurumbu mar kale waxay ka hadda bannaanka magaciisoo dhammaystiran waa maxamed nuur kabiir oo qurumbu isku dayaha kubaddii ugu dambaysay ee south west inkastoo wax kasta iyo kubaddaasi dulhaha wahwada ay ku dhammaatay bannaanka goosha ayay ka soo bilaabeen gobolka banaadir kubaddii taxana ahayd waxay gaari rabtay ciyaaryahanka lagu magacaabo muse hagaag markan way soo baasteen ciyaartooda koonfur galbeed soomaaliya waa kan ciyaaryahanka lagu magacaabo liibaan kubaddaas si kasta oo bannaanka ayaa ugu baxday waxaana kubadda ay ku socon doontaa dhinaca ciyaartooda koonfur galbeed wiilasha gobolka banaadir ayaana kubadda soo ciyaari doona kubadda ay soo ciyaareen si kasta way soo saareen wiilasha gobolka banaadir koonfur galbeed ayaa mar kale kubadda soo abaabulayaan hase haatee kubaddaasi mar kale bannaanka looga saaray daawada haddii aad ku soo birta daawadashada ciyaartan waa gooli eber kulankan waxaase ku hogaaminaya ciyaartooyda gobolka banaadir goolka qura ee galabta halkani ka dhashay waa goolkuu dhaliyey ciyaaryahanka lagu magacaabo nageeya deeq shaashaddu waxay soo qabanaysaa badbaadintii uu sameeyey goolhaya hanad seef iyo kubaddii halista badneed uu isku dayey lambarka 17aad ee kejs almuhandis cosmaan hagaag markan kubaddaasi waa uu badbaashay goolayaha lagu magacaabo hanad cumar isxaaq kaasoo ah goolhay wakhti kasta wax badbaadin kara markay timaaddo kubadaha noocan oo kale ah waayahay markan kubaddaas waa uu soo ciyaaray goolayaha lagu magacaabo hanad way soo dhaqaaqeen ciyaartooda koonfur galbeed soomaaliya waa laga qaado kubaddaasi ibraahim ilyaas waa uu soo dhaqaaqay ibraahim super gool الله محوا جول وافي وحكستو حواره ciyaaryahanka lagu magacaabo ibraahim 1 2 3 4 qaar ka mid ah ciyaartooyda koonfur galbeed soomaaliya waxay garan waayeen jihada uu ku dhaqaaqayo waxay garan waayeen midigta uu adeegsanayo waxay garan waayeen bidixda uu ku xawaareenayo goohayo waxa uu taagnaa sida taalada oo kale manaysaneen wax laga qaban karo manaysaneen wax la haweysan karo manaysaneen wax laga hor istaagi karo kubaddii cajiibkeeda uu dhammaystiray المهندس إبراهيم إلياس جولاتسو بنادر قلبتي قبلك بنادر قلبتي لوgu baashaalay KJS قلبتي uruleenay oo raaxaysanay ciyaaryahanka lagu magacaabo Ibrahim Ilyas kaasoo marashasi qurxiyay koonfur galbeed su'aalaha way ku bateen koonfur galbeed jahwararku uu ku batay isagaa shaqaystay isagaa dhaliyay isagaa qaatay isagaa dhammaystiray isagaa la xawaareeyay isagaa qaatay mas'uuliyadda isagaana soo noqday mid aan u baahnayn caawinaadda ciyaartooy kale oo gobolka banaadir ah alla ilaahay maxuu gool
جول لافي ربكا يتالا مركل عيارتودا gobolka banaadir ay sameeyaan nagay deeq si qurux badan ayuu gool ciyaaryahan kale uu magacaabo nagay saatee kubadaasi banaanka looga saaray koonfur galbeed Soomaaliya waxa la leeyahay way jabeen jabiya oo waxda ugu badan ee taageerayaasha banaadiriga xilli South West oo calankooda taageerayaal badan ay gacanta ku hayaan uusan ka babanaynin garoonka injineerii Sow si kastaba garsoorku saacada uu hakiyay waxa si jira dhaawac ciyaaryahanka lagu magacaabo Ibrahim Ilyas dhaliyaha goolkii labaad ee ciyaartan ayaa dhaawac sheeganaya in gobolka banaadir uu ciyaaray Ibrahim Ilyas waxay ka dhigan tahay inay haystaan ciyaaryahan waqti kasta wax go'aamin kara iskiilow goolkii waqti dambe uu ka dhaliyay ciyaartooyda galmudug galabta waxa uu mashraxiyada la wareegay gool maamuuskiisa uu sareeyay taasoo 4 ilaa 5 kamid ah ciyaartooyda koonfur galbeed ay iska daawanayaan waxa ka soconaya injineerii Sow ilaa uu gaar xagasha ugu dambeeysa kuna xawo shabaqa kubadda صار حسن بارا يا بحني مركن كهروديا حسن محمد حاجي حسن باري وحو مركن كهروديا سيي عياريان كوفر قلبي دفاع دحوق عياريا محمد نور برودو دغدي لحدني كواد يا عيارته مريسا صاحب يال وحاصير على 10 سكن او gobolka banaadir kubad kala halisa Dadir Jalwa ba إبراهيم يا بدباشي مركل موسى بنانكا الله محوها كبد قروح بدن الله محيات كبد كيمات دينا gobolka banaadir الله محو اسكو دي عجيبه سميه جلا الله محو سو صار إبراهيم الله محو رغال إن سميه موسى الله محي كبداسي بنانكا هادي koonfur galbeed ayaa duulaana marka lambarka 10aad ee koonfur galbeed laacibka lagu magacaabo aadan muallim kubadaas waa laga soo qaaray aadan muallim daadir xasan haashi daadir jalla kubad intaysan gaarin waxa kamay difaac bidix koonfur galbeed ayaa soo ciyaaraysa Usmaan Bashiir Usmaan si qurux badan oo ciyaarana raacaysa ciyaaryahanka lagu magacaabo Usmaan waxaana kamid ah Ibrahim Ilyas wali Usmaan Bashiir ayaa dhaqaaqaya 4 ilaa 5 kamid ah ayuu la dhaqaaqay Liban Usmaan Muday يا سلام يا سلام يا سلام الله محان داولنا عيار عجيبة سقرح بين يوسف دي ليبان عثمان مودي وحكستوي دغاغان كونفور قلبات تاجر يا شودو وحكستوي دغاغان عيار تودا كونفور قلبات وحيكا دبنانكا تاجر يا شا كونفور قلبات وحي ليين عياري واقلين دنبي حل تاجر يا شا قبلك بنادر ليين قلبتين يا إذن كهري عيار تودا قبلك بنادر يا دولان لقويها مركن دفاع بدح ayaa kubadda soo dhaqaajinaya Mahad Haroon waa uu agureejiye Mahad waa uu xaroodo Mahad waa uu karaso Mahad khatar banaanka ayaa u saareen gobolka banaadir waxaase kubaddaasi banaanka u saaray ciyaaryahanka lagu magacaabo Maxamed Cali Haridka waa markaliyo gees kalaad waa xaalad kale ay wajahayso ciyaartooyga gobolka banaadir taasi kubad kale oo ka imaan doonta South West وسكرسن كونفور قلبيد او يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام كونفور قلبيد وحيد اليان جول لافي محمود ابراهيم يا نقد السوبر سب علنكي كونفور قلبيد وهو بنيا مركن كونفور قلبيد waxay doonayaan inay sameeyaan soo laabasho cajiib ciyaartu waa cajiib galabta balaan daawano balaan milicsano balaan sheeda sare ka qiimeeno hanaanka loo soo tuuray xirfadda loo abaabulay iyo qaabka kubadda shabaqa ay ugu xadreysay waxay ahayd qaab cajiib South West waa cajiib محمود إبراهيم واجب سكستر عيارتودا كونفور قلبيد waxaa gashay rajayiriyo badan oo ciyaartay kala hayeen maadaama ay dhaliyeen gool soo nooleynaya rajada ciyaartay kala hayeen aadan muallim kubadii uu baas waa laga soo qaaday waa kan Daabir Xasan Xaashi jalla baas Ibrahim Ilyas jalla التم وحيات كبدا تما وحيات كبد المركتا وحيات كبد مدفعة تاسو الله دري شبقة كونفور قلبيد دادر جلا واو دغاغي إبراهيم إلياس يونتو العياري والله سعليي وو عمري وو حدريي واسو دربي
saatee wax kasta u dhaqaaqo jalla kubaddaasi waxay ka aadda bannaanka maxamuud ibraahim dhaliyihii goolka xulka South West ayay markan shaawadu soo qabanaysaa si kastaba ciyaartooyda koonfur galbeed waxay wajahayaan xaalad halisa maadaama wiilasha koonfur galbeed lagu soo tuurayo kubad geeska laala waxaase kubadda u taagan ciyaaryahanka lagu magacaabay Ibraahim Ilyas dhaliyihii goolkii labaad ee gobolka Banaadir Ibraahim Ilyas waa ciyaaryahan innaba qeyrul caadi ahayn marka kubadaha nooc kasta loo fiiriyo waa Lionel Messi ama Ronaldo oo kala ciyaar Juventus iyo sidoo kale Barcelona marka loo fiiriyo hanaanka uu ciyaaryahankan uu ciyaarayo kubad geeska laala ayaa la soo tuurayaa way soo kororsan kubaddaasi saatee ciyaartooyda waayaa kubaddaasi bannaanka ayaa aadda markan ciyaartooyda koonfur galbeed garsoorku waxa uu laalayaa qaar ka mid ah ciyaartooyda waxaase loo sharaxayaa in aysan qalad kala samayn karin haddii ay sameeyaanna dhibaato kale ay kala kulmi karaan maadaama qalad kaloo halisaa lagu sameeyey ciyaaryahanka lagu magacaabay Ibraahim Ilyas kaasoo aan ku tilmaami karo wadnaha keliya ee dhaqaajinaya gobolka Banaadir kubad masaafo u jirta shabaqu ilaalinaya golayaha koonfur galbeed Ibraahim ayaa la soo tuurayaa way soo tuureen ciyaartooyda gobolka Banaadir kubaddaasi waa la soo saaray ciyaartooyda koonfur galbeed ayaa sameynayaan kubad rogaal celina hasaatee waa laga soo qaaday Banaadir way soo baasteen gobolka Banaadir si qurux badan ayuu qaatay Ibraahim Ilyas bannaanka ayuu keenay Ibraahim Ilyas si daarigta ayuu kubaddaasi bannaanka u aaday maadaama taageerayaasha gobolka Banaadir istaag ay ku daawanayaan ciyaarta galabta wala soo baasay kubadda markan si qurux badan ayuu gooyay ciyaaryahanka lagu magacaabo maxamuud ibraahim bas fiican ayuu soo dhigay maxamuud sawaxan badan ayay sameynayaan taageerayaasha koonfur galbeed saatee maxamuud hariidka ayaa hor istaagay kubadda uu rajaynay inuu helo lambarka 7 ee koonfur galbeed Liibaan Cusmaan Mudey goosha ayuu ka soo bilaabayaa markan golaya gobolka Banaadir laacibka lagu magacaabo Hanad Omar Isaaq labadii tartan ee ugu dambeysay oo lagu ciyaaro caasimadda Soomaaliya tartanka maamul goboleedyada gobolka Banaadir wiilasha gobolka Banaadir soo ma gaareen darajada kama dambaysta tartanka maamul goboleedyada gobolka Banaadir waxaase galabtay doonayaan in tikidkooda ay jartaan haddii sidan ciyaarta ay ku dhamaato inkastoo dhaqaaq kasta ay sameeyaan ciyaartooyda koonfur galbeed Soomaaliya ay dhaawici karto libinta hoggaanka ay ku hayaan wiilasha gobolka Banaadir Ibraahim Ilyas naagee Muse boos qaadasho cajiib ayuu sameeyay ciyaaryahanka lagu magacaabo Muse saatee si kastaba waxaa laga dhigay garab dhaaf ciyaaryahanka lambarka 9 ee gobolka Banaadir Muse Xuseen Cali soo baasan markan ciyaartooyda koonfur galbeed Soomaaliya laacibka difaaca bidix Mahad Aaron kubadda uu soo ciyaaray waxaa ka qaaday Daadir Xasan Xaashi Daadir Jalla kubaddaasi Jalla uu soo dhaqaajiyay waa uu dheereen waaye way lumiyaan markan koonfur galbeed Soomaaliya waa kan ciyaaryahanka lagu magacaabo Daadir Xasan Xaashi Daadir Jalla faul ayuu dhigay garsoorku waxaase qaladkaasi loo dhigay ciyaartooyda gobolka Banaadir taageerayaasha gobolka Banaadir way jalbeysayeen waxaasay ku hadaaqayaan magaca gobolka Banaadir maadaama ay daawanayaan ciyaar weyn taasoo ay doonayaan inay kugu gudbaan fiinaalaha tartanka maamul goboleedyada waayahay kubaddii la soo korayso waa laga soo saaray markanse waa koonfur galbeed ciyaaryahanka difaaca bidix koonfur galbeed ugu ciyaaraya Mahad Aaron waxa uu la ciyaaro kubaddaasi maxamuud daliyaha goolka uuree koonfur galbeed galabta Mahad Aaron ayaa la soo gaarsiiyey garabka ayuu soo dhigay Mahad saatee kubaddaasi bannaanka ayaa u saareen ciyaartooyda gobolka Banaadir Mahad Aaron again waa uu soo baasay Mahad aadan macallimu boos fiican ayuu soo dhigay ciyaaryahanka lagu magacaabo aadan madaxay isla boodeen ciyaartooyda gobolka Banaadir iyo kuwa koonfur galbeed saatee intay isa gaareen Cusmaan bannaanka loo saaray soo baasteen markan ciyaartooyda koonfur galbeed si qurux badan ayaa loo soo dhisay kubadda jiha fiican ayaa la soo dhigaa saatee kubaddaas way soo saareen markooda wiilasha gobolka Banaadir Daadir Xasan Xaashi Jalla ayaa kubaddaas soo saaray ciyaaryahanka lagu magacaabo Muse Xuseen Cali aad ayuu xawaaranayaa laacibka geeska Afrika galabta waxa uu ka mid yahay ciyaartooyda ugu dhaqdhaqaaqa badan ciyaartan hagaag garsoorku markan waxa uu dhigay kubad baawla daqiiqadii 69aad iyo
سكمدي كوي تمناد أي عيارت مريان داود يا صاحب يا الهديات بس كغيرت دم بسوق بستي داوشة عيارت الوين أو دحسة كونفور قلبي سوماليا يصلوا كل عيارتودا قبل كبنادر وحي مريسا لبا جول يصلوا كل جول oo ay ku hogaaminayaan ciyaartoyda gobolka Banaadir labada gool ee gobolka Banaadir waxay kaga mahadinayaan Nagey iyo sidoo kale Ibrahim Ilyas halka goolka quray ciyaartoyda koonfur galbeed uu ansixiyay ciyaaryahanka lagu magacaabo Maxamuud basabaasan markan ciyaartoyda koonfur galbeed aadan waa laga soo qaaday ciyaaryahanka lambarka 10aad Asmaan ayaa dhaqaaqay markan si kastaba qurunbu ayaa isku dayay saate waa laga soo saaray koonfur galbeed gobolka Banaadir kubadaas way soo dheereeyeen dhankooda وسام مدحين ويلش كونفور قلبات دفاع دحيه gobolka Banaadir Abaas ayaa soo saaray barooda ay soo gaartay saate difaac midiga koonfur galbeed ayaa kubadaasi jiha kala soo dhigay ciyaaryahanka lagu magacaabo Nuurani Maxamed Nuurani markale wiilasha gobolka Banaadir waxay wajahayaan kubad kale Daadir Xasan Xaashi Daadir Jalla qurux badan ayuu sameeyay Jalla kubadaasi waa laga soo qaaday ciyaartooyda gobolka Banaadir markan soo koonfur galbeed wili koonfur galbeed saate kubadaas waa laga soo saaray xidiga koonfur galbeed Ibrahim Ilyas ayaa kubada haysta markan Ibrahim Ilyas waa shaafiga ciyaartan labada dhinac guud ahaan ciyaartooyda ciyaaraysa maadaama uu yahay kan ugu halista badan ee ciyaartooyda gobolka Banaadir dhinacooda ka ciyaaraya markay timaado in kubada la ciyaaro markay timaado in kubada la dhiso markay timaado in kubada la dheereeyo waa ciyaaryahan kamid ah kuwa ugu dhaqdhaqaaqa badan ama ugu fiican fursadaha noocaas oo kala wiilasha gobolka Banaadir ayaa kubada soo dhaqaajinayaan markan boos fiican ayaa loo soo dhigay Ibrahim Ilyas qarash cajiiba Ibrahim gudaayuu go Ibrahim wali Ibrahim ba ugu dambeyn kubadaasi waxay gacmihiisa ku dhamaadeen gool ayaa koonfur galbeed laacibka lagu magacaabo Ibrahim haddii Ibrahim uu darbeeyay Ibrahim ayaa sakad badbaashay kaasoo shabaq u ilaalinaya ciyaartooyda koonfur galbeed Ibrahim Ilyas oo shahaado ay qabanayso waa mucjiso lagu baranayo tartanka maamul goboleedyada iyo gobolka Banaadir sanadkan 2020 kadib marka laga soo tago ciyaaryahanka lagu magacaabo Sagraawi waa ciyaaryahan kale oo goolal badan ka dhalinaya ciyaaraha maamul goboleedyada iyo gobolka Banaadir si kastaba waxa uu sheeganayaa markan hal abuuraha ugu saameynta badan ciyaartan dhinaca gobolka Banaadir laacibka lagu magacaabo Ibrahim Ilyas waxda caafimaadka gudaha garoonka ay soo gaari doonaan si loo dabiibo ciyaaryahankan shaashadu waxay soo qabanaysaa farsamooyinkii uu soo bandhigay fursadooyinkii uu abuuray iyo ficilka uu ka sameeyo dhinaca gobolka Banaadir laacibka lagu magacaabo Ibrahim Ilyas barooda ayaa kubadaasi ka taabtay halistu way ka badnaanay sida ay tahay Ibrahim Ilyas waa nooc sida kheyraadka badda oo kala taasoo tababaraha gobolka Banaadir Daadir Amiin Ali Daada hal kasta uu kaga faa'iideysan karo ciyaaryahankan بدل يا داعي مركان توبراه هوغامينaya koonfur galbeed Soomaaliya tobar Axmed Gidaamo waxa uu sameeyaa isbedel waxa ciyaarta bedel ku soo galaya lambar 12 ee koonfur galbeed Cabdiraxmaan Maxamed iyo ciyaaryahanka lambarka 9aad Naaji Maxamed Cabdiraxmaan Maxamed iyo Naaji Maxamed oo maaliyada lambarka 9aad iyo lambar 12aad uu kala xiran koonfur galbeed ayaa bedel ugu soo biiray ciyaarta waa daqiiqadii 73aad iyadoo ciyaartooyda koonfur galbeed ee doonaya inay sameeyaan soo laabasho wala soo karooso markan Nuurani Maxamed Nuurani kubadda uu soo karooso way socotaa garabka ayaa taala markan si kastaba taakal sare ayuu sameeyay taabashadiisii ugu horeysay ciyaarta laacibka lagu magacaabo Cabdiraxmaan Maxamed waana waxa keenay in faawul laga dhigo Cabdiraxmaan Maxamed iskuulaan ayuu diray tababaraha gobolka Banaadir qaar kamid ah ciyaartooydiisu Daadir Amiin Ali Daada ayaa daqiiqadaha hore doonaya in bedel uu ku soo kordhiyo ciyaartooyda iskuulaanaysa waxaana kamid ah ciyaartooyda iskuulaanaysa qaar kamid ah ciyaartooyda Geeska Afrika kuwaas oo bandhig waaliyaha ka sameynaya ciyaaraha maamul goboleedyada iyo gobolka Banaadir nanka ayaa u baxda markan Nuurani Maxamed Nuurani waxa uu sameynayaa ama uu soo shaqo gelinayaa kubad kale oo gacan tuura kubadda uu soo baasay ciyaaryahanka lagu magacaabo Nuurani madaxa ayaa isla booday ciyaartooyda koonfur galbeed Soomaaliya waxay baadagoobayaan goolkii rajadooda soo celin lahaa waxay baadagoobayaan goolkii soo nooleen lahaa inay ciyaaraan kama dambaysta tartanka maamul goboleedyada iyo gobolka Banaadir waxay baadagoobayaan in garto halkeeda ay ku soo celiyaan si labinta ay ula qaybsadaan gobolka Banaadir si kastaba ciyaartooyda koonfur galbeed Soomaaliya waxa laga dhigaa faawul kadib markii qaladkaasi uu sameeyay ciyaaryahanka lambar 12aad Cabdiraxmaan Maxamed kaasoo lagu bedelo Umar Aadan
sidoo kale maxamed nuur kabiirow oo lagu naanayso qurumbo oo ciyaarta laga saaray waxaa beddel ku soo galay beddelkiisa naaji maxamed lambarka 9aad ee koonfur galbeed labadaas ciyaaryahan miyay noqon doonaan beddel kambaaga xulka koonfur galbeed ka qayb qaata waan arki doonnaa daadir xasan xaashi daadir jalla dhowr ciyaaran ayaa ku hareeraysan daadir xasan xaashi jalla si qurux badan ayuu u dhaqaaqayaa ciyaaryahankan inkastoo laacibka difaaca bidix ee koonfur galbeed haldan qurux badan uu samaynayo si kastaba kubaddaasi bannaanka looga saara markan laacibka lagu magacaabo daadir jalla taageerayaal badan ayaa galabta ku sugan kuwaasoo u muqtuusan dhinaca gobolka banaadir maadaama ay yihiin kuwa ugu badan muse si kastaba bawl ayaa laga dhigay ciyaaryahanka lagu magacaabo muse lambarka 9aad ee gobolka banaadir wiilasha koonfur galbeed waxay doonayaan inay soo shaqogeliyaan kubad kale wiilasha koonfur galbeed waxay doonayaan inay soo ciyaaraan kubad kale wiilasha koonfur galbeed waxay doonayaan in ay soo nooleeyaan hijada ciyaarta ay kale yihiin bedelada ciyaartu markan waxaa ku soo biiray ciyaaryahanka lagu magacaabo xaaji mucallim kaasoo maaliyadda lambarka 10aad u xiran gobolka banaadir waayahay markan way soo baaseen ciyaartooda koonfur galbeed asaatee kubadda ay soo ciyaareen waxaa qabsaday goolhayaha gobolka banaadir laacibka lagu magacaabo hanad cumar isxaaq haddii aan fiirno qaar ka mid ah saaxiibada araahdooda nala soo wadaagay waxaa ka mid ah caashe maxamed aadan waxay soo qortay carar daayadow daadirow waayaadoo maasan tahay asli maxamed waxay tidhi banaadir waxba orodkiiyo idinka dhammaan galmudug ayaan idin sugayso waayaadoo maasan tahay beddel ayuu sameeyey tababara daadir amiir waxaana ciyaarta uu ka saaray ibraahim ilyaas dhaliyihii goolkii labaad ee ciyaarta gobolka banaadir waxaase beddelkiisa yimid laacibka lagu magacaabo xaaji macallim kaasoo ku soo biiray ciyaarta xaaji waxa uu doonayaa in daqiiqadaha hare ciyaarta wax badan uu ka sii sameeyo maadaama uu ka mid yahay ciyaartooda dhaqaaqa badan ee kulankan ciyaaraysa si qurux badan ayaa loo gooyey koonfur galbeed soomaaliya way soo krooseen si kastaba kubaddaasi waxaa qabsada goolayaa lagu magacaabo ibraahim dabcan waa hanad golahayaha gobolka banaadir hanad ayaa badbaashay kubadda halisa oo ay soo krooseen ciyaartooyda koonfur galbeed soomaaliya maadaama dhaqaaq badan ay sameeyeen wiilasha koonfur galbeed waqti dambe oo ciyaarta ah wiilasha gobolka banaadir ayaa kubadda haystaan markan xaaji mucallim aadan waa uu baasa ciyaaryahanka lagu magacaabo xaaji waxa uu la ciyaara laacibka lagu magacaabo cabdulle waa laga soo bundeeyey southwest ayaa sameynayaan kubad falcelina ama kubad rogaalina naaji maxamed waa uu taabtay naaji bos fiican ayaa loo soo dhigay si qurux badan ayuu u qaatay ciyaaryahankan waa la soo dirbeeyo bannaanka southwest waxay ka aada bannaanka injiisaya u jirta kubaddan in sadaqay dul cuskiyaan ciyaartooyda koonfur galbeed soomaaliya alla maxay soconaysaa ciyaar cajiiba alla muxuu soconayaa kulan cajiiba si kastaba waxaa ka harsan gebi ahaanba ciyaarta 13 daqiiqo natiijada guud ee ciyaarta waxaa ka harsan 13 daqiiqo wax kastoo loogu talagalay ciyaarta waxaa ka harsan 13 daqiiqo miyay soo laaban doonaan koonfur galbeed soomaaliya mise way gablan doonaan miyay adkaan doonaan gobolka banaadir mise waa laga bareejoon doonaa waa su'aal qof walbood garoonka ku sugan galabta uu isweydiinayo garabka ayaa loo soo dhigay markan ciyaaryahanka lagu magacaabo muse face to face ayuu ku wajahay baroodo muse bidix ayuu ku soo karoosay ciyaaryahanka lagu magacaabo muse asaatee kubaddaasi waa laga soo saaray laacibka lagu magacaabo muse bos fiican ayay soo dhigeen xidiga koonfur galbeed soomaaliya cusmaan bashiir kubaddii waxa kameeyey cusmaan waa uu soo ciyaaray garabka ayay u soo dhigeen ciyaartooyda koonfur galbeed hasaatee ugu dambeyn kubaddaasi bannaanka ayuu u saaray difaaca bidixee koonfur galbeed laacibka lagu magacaabo mahad ciyaartooyda koonfur galbeed wax badan ayay samaynayaan ilaa iyo daqiiqadda ugu dambaysa ciyaarta sidii ay u soo noolaan lahaayeen maadaama taageerayaal badan ay ku leeyihiin halkan kuwaasoo u sacabtumaya dhinaca koonfur galbeed soomaaliya sidoo kale marka laga hadlayo hannaanka ciyaarta kubadda cagta waxay leeyihiin ciyaartooy badan kubaddii la soo karoostay labadiisa gacmood ayuu ku saaray ibraahim xaaji mucallim aadan kubaddii u darbeeyey waxay ku dhacdo bareerka haddii uusan ciyaaryahankaasi baloo garan lahayn halistu way ka bidnaan lahayd sida haatan ay tahay nageeya deeq ayaa baxay idriis maxamed bilaal ayaase beddel ku soo galay balaan daawano balaan milicsano balaan sheedha sare ka qiimeeno kubaddii halistaheedaee wajahday kejs iyo isku daygii laacibka lagu magacaabo xaaji kaasoo ciyaarta beddel ku soo balgalay oo dhebel idriis maxamed bilaal ayaa isku dayay kubad dhebelah ama kubad qalmaroga ah inkastoo kubaddii uu isku dayay ciyaaryahanka lagu magacaabo idda ay ka hadda bannaanka ciyaartooda gobolka banaadir waxay samaynayaan wax kasta oo ay ku gaari karaan kama dambaysta shucaalada tartanka maamul goboleedyada iyo gobolka banaadir
waxaasey wajihi doonaan galmudug haddii galabta sidan ay ku dhammaystaan waaya markan ciyaartooda koonfur galbeed soomaaliya kubaddaasi waa laga soo qaaday waa kan laacibka lagu magacaabo xaaji mucallim aadan lambarka 10aad ee ciyaartooyda gobolka banaadir xaaji garabka ayuu u soo dhigay laacibka lagu magacaabo muse ida idris birta alla maxay crossbar ay kaga dhacday ciyaartooyda koonfur galbeed soomaaliya idris maxamed bilaal waa duulaan kaloo bedel lagu keenay kaasoo dhibaya ciyaartooyda koonfur galbeed soomaaliya xagal ayuu ka baadigooday xeendaab ayay ku socotay waxaase kubaddaasi ay kaga dhacday labada bir halkay iska galaan cajiib idris maxamed waa cajiib xidigii hore ee degmada cabdicasiis ayaa samaynaya kubad cajiiba isagoo qoobka ciyaar cajiiba ku soo bandhigaya garoonka weyn ee injineer irisow ibraahim wax kasta uu kubadda raaco waxay ahayd kubaddani kubaddaan wax laga qaban karin xeendaabka loo dhisay iyo qaabka loo xirfadeeyey alla maxaan idhaahdaa kubad kaloo qurux badan ayay soo dhisayaan koonfur galbeed kubaddaasi way soo saareen wiilasha gobolka banaadir ayaa duulaan samaynaya markan si kastaba kubadda ay madaxeeyeen xidigaha koonfur galbeed waxay ku dhacday mid ka mid ah ciyaartooda gobolka banaadir ka hor intaysan kubaddaasi bannaanka u bixin hagaag mar kale kubad foora gacan ayaa la soo dhisayaa ciyaartooyda koonfur galbeed ciyaaryahanka difaaca midig ugu ciyaaraya kubaddana soo ciyaari doona laacibka lagu magacaabo nuuraani maxamed nuuraani daqiiqadii 80aad ayaa ciyaartu ku dhacday taasoo micnaheedu ay tahay in 10ka daqiiqa ciyaarta ugu dambaysa ay ka dhibaato badnaan doonto 80kii daqiiqa ciyaartan ka horeysay waxaa la gali doonaa 10 daqiiqo dhimashaa taasoo lagu kala saari doono gobolka banaadir iyo sidoo kale ciyaartooyda koonfur galbeed soomaaliya xulka soo gudbay baroodo waa uu soo korosay 10ka daqiiqa ugu dambaysa waqtigu waxay dooneen inay ku dagaalamaan sikin kasta oo baxaya waa mid aan u soo laaban doonin koonfur galbeed soomaaliya waa mid aan u soo noolaan doonin macalinka labaad ee gobolka banaadir yaasiin dayib maxamed banyaa waxaa la siiyey kaar hurdi ah kadib markii muran badan ciyaarta uu ka sameeyey isagoo la murmay garsoore sare xasan maxamed xaaji xasan baari si kastaba 9 daqiiqa ayaa harsan waqtigu waa isgurayaa ciyaartu waa dabyaaqo kulanku waa dabyaaqo saaxiibayaal wax kastana waxay u muuqdaan gabagabo daadir xasan xaashi daadir jalla waxa uu ka hor qaatay nuuraani maxamed nuuraani waa laga xarooday jalla yaa salaam bannaanku soo dhigay jalla ida oo yaa salaam waa uu badbaashay goolayaa koonfur galbeed alla maxay yeed kubadaan innaba caadiyeen inkastoo garsoorku ansixiyey gollaadso gobolka banaadir idris maxamed bilaal ida ayaa ciyaarta ka dhigay 3 gool iyo gool galabta waa galabtii gobolka banaadir galabta waa galabtii la ciqaabaya koonfur galbeed galabta waa galabtii ay baashaalayeen tababare daadir amiin galabta waa galabtii ay raaxaysanayeen muqdishaawintu banaadirigu iyo qof kastoo guul u rajaynayo gobolka banaadir muddo kadib sannado kadib maalmo kadib xaraad dheer kadib jiilaal badan oo soo maray gobolka banaadir kadib waxay galabta tiigsan doonaan kama dambaysta tartanka maamul goboleedyadii gobolka banaadir bal aan daawano kubaddii muranka badan uu ka dhashay inkastoo golahayuu u badbaashay haddana garsoorku waa uu ansixiyey taageerayaasha qaar ee koonfur galbeed ma aysan rajaynayn galabta waxaani inkastoo wax kasta la rajayn karo muuse ayaa kubadda haysta markan garabka ayuu soo dhigay ciyaaryahanka lagu magacaabo muuse daadir jalla waa uu ka xarooda baroodo jalla ayaa kubadda haysta markan daadir xasan xaashi duufaanta garbaha ugu ciyaaraysa gobolka banaadir waa laga soo qaada markan ciyaaryahanka lagu magacaabo daadir xasan xaashi nuuraani maxamed nuuraani kubadda ay soo ciyaareen wiilasha xulka koonfur galbeed ugu dambeyn kubaddaasi bannaanka ayaa looga saaray si kastaba 7 daqiiqa ayaa ka harsan ciyaarta garsoorku kaar hurdaayuu la soo baxay waxaase markan kaar hurdayaa la siiyey mid ka mid ah ciyaartooyda gobolka banaadir taakal sare ayuu adeegsada lambarka 10aad waa kan laacibka lagu magacaabo muse kaasoo ah nin shaqo badan oo maaliyadda lambarka 9aad u xidhan ciyaartooyda xulka kubadda cagta ee koonfur galbeed waayaha markan waa weerar ciyaartooyda gobolka banaadir idris maxamed bilaal mucjisada daadira kubaddaas waa uu baasay laacibka lagu magacaabo idris garabka ayaa la soo dhigay markan waa kan laacibka lagu magacaabo xaaji mucallim si kastaba xaaji kubaddaas waa uu xakameyn waayey wax kastoo uu xaaji turanturoodo waxa uu taabtay dhulka waxaase kubaddaas la dhigay goosha xulka koonfur galbeed
way soo ciyaareen markan ciyaartooyda koonfur galbeed si kastaba laacibka lagu magacaabo Idris ayaa ah dhaliyaha goolka saddexaad ee gobolka Banaadir galabta daawad haddii aad ku soo birto daawashada ciyaartan Ibrahim Ilyas Nageey soo kale ciyaaryahanka lagu magacaabo Idris ayaa ka kala heleen goolashu wiilasha gobolka Banaadir halka goolka quree koonfur galbeed galabta uu ansixiyay ciyaaryahanka lambarka 20aad Maxamuud Ibrahim faul ayaa loo dhigay markan koonfur galbeed Soomaaliya kadib markii qalad lagu galay mid kamid ah ciyaartoydooda wiilasha koonfur galbeed ayaa kubadda soo amiri doona markan iyaga ayaana kubadda soo dhaqaajin doona waxaase kubadda u taagan ciyaaryahanka lambarka 5aad ee koonfur galbeed laacibka lagu magacaabo Barodo kubadda uu soo ciyaaray laacibka lagu magacaabo Barodo ayaa soo amirayaan xidigaha markan koonfur galbeed boos fiican ayaa la soo dhigay way soo madaxayeen asaatee kubaddaas waxaa qabsaday golahayaha koowaad ee gobolka Banaadir laacibka lagu magacaabo Hanad Cumar Isxaaq maadaama Hanad uu si qurux badan ugu soo dhalaalaya ciyaartan hagaag daawadayaashu markan waxay muuqanaya daawadayaal ka daawanaya guri ku dhex yaala ama qasri ku dhex yaala garoonka gudihiisa kuwaas oo loo dhisay ciyaartooyda halkaas ayay ku sugayn oo ay ka daawanayaan Idris banaanka ayuu keenay ciyaaryahanka lagu magacaabo Idris Maxamed Bilaal waxa uu kamid ahaa garbiyi ugu haysta badnaa tartanka degmooyinka gobolka Banaadir waana ciyaaryahankii lambarka 12aad u xirnaa degmada Cabdicasiis ee gobolka Banaadir geeyay kama dambaysta tartanka maamul goboleedyadii gobol dabcan tartanka degmooyinka gobolka Banaadir sanadkan 2020na waxa ciyaaryahankan uu ka qayb qaadanayaa in ciyaartooyda gobolka Banaadir tartanka maamul goboleedyadii gobolka Banaadir uu geeyo kama dambaystiisa si qurux badan ayuu gooyay lambarka 10aad boos fiican ayaa la soo dhigay saatee garab dhaaf ayuu ku jiray ciyaaryahankan waase lambarka 7aad ee gobolka koonfur galbeed ciyaaryahanka lagu magacaabo Liibaan Cusmaan Mudey waxaan sugnaa waa in garsoor uu seeriga uu ka dhawaajiyo maadaama daqiiqad 4 daqiiqo gaaraysa gebi ahaanba ay ka harsantahay ciyaartan 4 daqiiqo ayaa gebi ahaanba ka harsan daawadayaal saaxiibayaal kulankan weyn ee ka imaanaya garoonka Injineer Irisow waxaase u baahan yihiin in 2 gool ay soo kabasho ka sameeyaan ciyaartooyda xulka koonfur galbeed taasoo ah rajo ay adag tahay inay sameeyaan sidoo kale wiilasha gobolka Banaadir galabta waxay u baahan yihiin in difaac ay sii adkaystaan daqiiqadaha hore ee ciyaarta ka harsan inkastoo wax kasta kubadda cagta ay ka dhici karaan haddana koonfur galbeed waxay wadaan dardar way isku dayeen markan ciyaartooyda koonfur galbeed asaatee lambar 11aad ee koonfur galbeed laacibka lagu magacaabo Cabdiraxmaan Maxamed Axmed kubaddii uu darbeeyay waxay ka dabanaanka wax kasta waxay u muuqdaan gabagabo wax kasta waxay u muuqdaan dabyaaqo wax kasta waxay u muuqdaan wax si ilaanaya wax kasta waxay u muuqdaan wax u fiican dhagaa taageerayaasha gobolka Banaadir wax kasta waxay u muuqdaan wax dhibaateynaya taageerayaasha koonfur galbeed Soomaaliya maadaama ay dadaaleen koonfur galbeed sanadkan wax badan ay qabteen shaqo badan iyo juhdi badan ay sameeyeen oo ay soo gaareen marxaladda afar dhamaadka tartanka maamul goboleedyadii gobolka Banaadir galabta wiilasha gobolka Banaadir waxay ku hogaaminayaan 3 gool farqiga 2 gool ah ayayna ka sarayaan ciyaartooyda koonfur galbeed Soomaaliya ciyaartan waya markan way soo baaseen way lumiyaan kubadda markan Xaaji Aadan Muallim si kasta waxa loo dhigay faul ciyaaryahanka lagu magacaabo Xaaji kadib markii qaladkaas uu sameeyay ciyaaryahanka lagu magacaabo Maxamuud Xaaji Muallim Aadan dood badan waxa uu ka keenayaa qaladka lagu sameeyay xidigan markasta uu qalad sameeyo difaacada markasta uu qalad sameeyo goolhayaada qaabteedu waa shabaqa si kastaba kubadda halis ayaa loo dhigay goob halis ah ciyaartooyda gobolka Banaadir koonfur galbeed waxay wajihi doontaa xaalad kale halis ah iyo bulis kale oo ka imaan doona ciyaartooyda gobolka Banaadir maadaama gobolka Banaadir uu ciyaarayo boqorka bulisoonada ciyaaryahanka lagu magacaabo Cabdirashiid kaasoo bulis la taaban ugu shubay ciyaartooyda galmudug ciyaar ku dhamaata 2 gool kana tirsaneed marxaladda heerka groupka ee tartanka maamul goboleedyadii gobolka Banaadir sanadkan waxaa soo haysta ciyaaryahanka lagu magacaabo Cabdirashiid fursad kale uu ku dhalin karo gool kale oo saameyn leh galabta haddii ciyaartan uu ka dhaliyo taageerayaasha qaar ee xulka kubadda cagta koonfur galbeed waqti hore ayay ka sii dhaqaaqayaan gudaha garoonka Injineer Irisow maadaama ay u muuqdaan kuwa aanan soo laabasho ka sameyn karin waayaa dhowr ciyaaryahan ayaa bulisoonkan xiranaysa waxaana ka mid ah laacibka lagu magacaabo Liibaan Cusmaan sidoo kale waxaa ku jira ciyaaryahanka lagu magacaabo Barodo xilli keli uu ku yahay Cabdirashiid boqorka bulisoonada ee gobolka Banaadir ku dhawaad 5 ciyaaryahan ayaa baraarka xiranaysa 89 daqiiqo iyo 10 sakan ayaa ciyaartu maraysaa saaxiibayaal daawadayaal waxaanu kulanku marayaa 3 gool iyo gool
oo ay ku hogaaminayaan ciyaartooyda gobolka banaadir cabdirashiid kama haysan fogeen shabaqa buluskii u tuura ciyaaryahanka lagu magacaabo cabdirashiid lambarka lixaad ee gobolka banaadir hagaag mar kale waa la soo ciyaara kubadda markan boos fiican iyo soo dhigeen nuuraani maxamed nuuraani duwaha xulka koonfur galbeed kubaddaas waa laga qaaday cabdirashiid xaaji mucallim aadan xaaji kubaddaas waxa uu la ciyaaray ayuub maxamed cabdi ayuub kubaddaas waxa uu gaarsiiyey ciyaaryahanka difaaca midig ugu ciyaaraya cabdulaahi cabdulle koonfur galbeed ayaa duulaan lagu yahay boos fiican ayuu kubaddaas ka dhiibay ciyaaryahanka lagu magacaabo xaaji mucallim aadan hasaatee way ka dheeraatay dhaliyihii goolkii saddexaad ee galabta ciyaaryahanka lagu magacaabo idriis mar kale koonfur galbeed daadir xasan xaashi kubadda uu darbeeyey ciyaaryahanka lagu magacaabo daadir xasan xaashi daadir jalla waxay noqotay kubad ugu dambeyn bannaan ku dhammaatay daqiiqadii sagaashanaad ayaa ku dhacday 4 daqiiqo oo dheer ayaa lagu daray ciyaarta waa 4 daqiiqo oo natiijadu dhinacay u dhici doonto waase 4 daqiiqo oo ciyaartooyda gobolka banaadir ay u baahan yihiin in difaacay galaan si ay natiijadu halkeeda ugu dhigaan si labintu halkeeda u siyaato garabka ayaa taala markan si qurux badan ayuu gooyay ciyaaryahanka lambarka 17aad ee xulka kubadda cagta koonfur galbeed si kasta waxaa loo dhigay faawul laacibka lagu magacaabo cusmaan bashiir aadan kubaddii faawulkeed loo dhigay cusmaan bashiir ayuu dhaawacyada sheeganayaa xidigan kubadda waxa uu taagan dhowr ciyaaryahan waxaase ka mid ah ciyaartooy xerada ganaxa ku jirta laacibka lagu magacaabo aadan mucallim axmed lambarka 10aad ee xulka kubadda cagta south west beeda ayaa galabta laga dabaaldegi doonin inkastoo 17 degme ee gobolka banaadir dabaaldegu isqabsan doono maadaama wiilasha muqdishaawiintu galabta ay muujiyeen ciyaar sare xilli koonfur galbeed si lamid ah ay ciyaareen haddana kubadda cagtu waa nasiib kulamo dhalan mar kastana kaama jirto sidaas darteed wiilasha gobolka banaadir oo labadii tartan ee ugu dambaysa ku hareeyey wareegga samafiinaalaha markay ugu fiican yihiin sanadkan waxay jaranayaan tikidkooda fiinaalaha iyagoo markii ugu horraysa wajahaya maamul goboleedka galmudug kama dambaysta tartanka ciyaaraha maamul goboleedyada iyo gobolka banaadir sanadkan 2020 garsoorku faawul ayuu dhigay markan 90 kii daqiiqa marka ay soo idlaatay 4 daqiiqo dheer oo ciyaarta lagu daray taasoo micnaheedu ay tahay 240 sakin waxaa baxda 2 daqiiqo sidoo kale 40 sakin oo ka mid ah sidaas darteed sakimadu way sii siqayaan ciyaartuna waxay ku sii dhowaanaysaa gabagabadii xilli taageerayaasha qaar goor hore ay bilaabeen in garoonka ay ka sii baxaan daadir xasan xaashi jalla oo ah ciyaaryahanka ugu dhibka badan ee garbaha duulaanka ah ay wajahayeen ciyaartooyda lagu magacaabo nuuraani maxamed nuuraani iyo ciyaartooyda koonfur galbeed waxaa la keenay beddelkiisa si kastaba kubaddaasi bannaanka yaaday garsoorku waxa uu tilmaamayaa in kubadda goosha la suri doono goolayaa lagu magacaabo hanad ayaana kubadda soo ciyaari doona goolaya hanad iyo sidoo kale barbaartiisa ayaa kubadda soo camiri doona way soo krooseen markan hase haatee kubaddaasi bannaanka ayaa u baxday mar kale waxaa kubad foora gacanaa samayn doonaa ciyaartooyda gobolka banaadir waxaana kubaddani soo ciyaar gelin doona cabdulaahi cabdulle kubaddii la soo ciyaara cabdulaahi cabdulle waa laga qaaday koonfur galbeed soomaaliya ayaana la wareegeen wiilasha magacooda loo soo gaabiyo KJS si kastaba wakhtigu waa gabagabo waxaa ka harsan 20 sakin gebi ahaanba ciyaarta ka imaanaysa garoonka injineer irisow iyo samafiinaalaha tartanka maamul goboleedyadii gobolka banaadir 19 sakin 18 sakin 17 sakin 16 sakin sakimadu waa ay sii socdaan koonfur galbeedna waa la soo gootinayaa inkastoo koonfur galbeed soomaaliya sanadkan shaqo badan ay qabteen sanadkan juhdi badan ay isgeliyeen sanadkan waxqabad fiican ay soo bandhigeen haddana galabta maysan noqon galabtooda garsoore xasan maxamed xaaji xasan baari seeriga ayuu ka dhawaajiyey waxaana gebi ahaanba ciyaarta ee ku soo idlaatay daawadayaal saaxiibayaal koonfur galbeed soomaaliya gool gobolka banaadir 3 gool 3 gool ee gobolka banaadir galabta waxay kaga mahad celinayaan ciyaaryahanada kale nagee ibraahim iyo sidoo kale idris kuwaasoo daqiiqadii 41aad 58aad iyo daqiiqadii 80aad shabaqa gaaray xilli goolka madiga ee koonfur galbeed soomaaliya galabta uu ansixiyey ciyaaryahanka lagu magacaabo maxamuud kaasoo bedel ku soo galay qaybtii labaad ee ciyaarta waana laacibka lambarka 20aad u xirnaa guud ahaan waxaa halkaas ku soo gabagabeynaa saaxiibayaal daawadayaal tabintii tooska ahayd ee ka imaanaysay
garoonka weyne injineer irisow iyo najiib cabdulqaadir xuseen oo idin leh tan iyo kulankeena xiga sidaas iyo nabaadiino